madaxweyne maxamed siyaad barrana wuxuu u yaqaanay maamaayo xumo oo waxa jirtay odayaal waa deegaanka intixaamar tageen in siyaad bar markii la kulmeen asoo hotel albeerka hurdaay inay ka soo tageen markii ay u yimaadeen wuxuu yiri war odagii maamaayo xumo ka soo tagteen shirka marka la nooga dhiga maamaayo xumo halkan soo istaajiyay sidoo kale xaajad sidii daba ari loo fiidin ma fiyoobato yam nin hooyadiis ka guuray sadohdii kuma nagaado maxamuud sabriye taariikhdiisa oo cilmiyeysan haddaan si kala bulshada ugu yiraahdo waxa uu ku dhashay degmada qadiimiga ee Ceelbuur 1922 wuxuu ahaa nin tala badan sida ganacsade madadaaliye nin sheeko sameeyo ah madaxweyne maxamed siyaad barrana wuxuu u yaqaanay maamaayo xumo oo waxa jirtay odayaal waa deegaanka intixaamar tageen in siyaad bar markii la kulmeen asoo hotel albeerka hurdaay inay ka soo tageen markii ay u yimaadeen wuxuu yiri war odagii maamaayo xumo ka soo tagteen shirka marka la nooga dhiga maamaayo xumo halkan soo istaajiyay runtii wuxuu ahaa samataliye saxardiid ah oo runta u sheegay madaxweyne maxamed siyaad barre isku waqtiga ahaayeen ilaahay ha u naxariistay iyo General Morgan oo ahaa taliyihii qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kalena ahaa ilaaladii gaarka ah ee madaxweyne maxamed siyaad barre oo deegaankan isku waqti ahaayeen adeer maxamuud wuxuu kamid ahaa dadkii asalkiisa Ceelbuur ka yimid kadibna tagay degmada Matabaan inkastoo waqti badan uu san joogin laakiin wuxuu kamid ahaa dadka udub dhaxaadka u ahaa degmada Gurceel oo ragii asaasayna gudoomiyana waqti ka soo noqday lagu qiyaasay bilowgii 60meedii ilaa 70meedii muddo laba waqti ah markii laga soo tago taariikhdaas oo kooban halka aan u socono waxa waay maamahayooyinka inta badan Soomaalidu waa maamahayaan laakiin maamahda waxa la rabaa xigmadda ay leedahay in bulshada kala ka duwan tahay nin baan saakad u say Cabdullaahi Yare oo xildhibaan oo federaalka ahaa jiray wuxuu soo qaaday mid kamid ah maamahayadiisii oo ahayd rati ku gubtay heeriyada geeliisa wuxuu ugu sheegay oo yaqaana ha marka waxa macquul qofkaas deegaanada uu ka soo jeedo inuu soo gaartay laakiin uusan garanayn halka ay ka timaaday waxaan ku xarabnaa qof kaste inaan gaarsiin karno aan dhihi karno ruuxan annaka bilownay diiwaanka taariikhda aan ku qoro waxaan ka soo qaadan doonaa in ka soo waqtigu aad u kooban yahay ilaa 4 ilaa 5 in ka soo ay ka badan yihiin nin dabeecad waashay waa nin dudun ciid ka mayray oo la micno ah qofka aburistiisa ilaahay hada istiraawani tay maanta dhan waa duduntaas oo asalkeeda ciid ka sameysay inaad waanidid sidoo kale xaajad sidii daba ari loo fiidin ma fiyoobato geeri libaax gorgor guma dago libaax waa ogtahay waa boqorka hawar dugaag oo inta badan yaani aduu cataa dhintay xoolaha kale way ka cabsadaan waa sababta markii yaani uu dhinto isku dayo cataa in la yiraahdo sanka laga taabto dadku waa ka cabsadaan maxaa yeelay raganimadiisa banaanka taalay ayaa hore loo xasuustaa sidoo kale adoonan xoolo badnayn xididkaaga hala degin iyadana ma xikmadihii laga dhaxlay ay kamid ahayd hadaadan iska tabareer tahay oo jeebkaaga iska cariiri yahay xididkaaga hala degin oo baasha meel kale u safar because waa xididka waa dareemi kartiin oo waa iska dhibadeen maanta dhan waa lagu qodqodaa maxaa lagu siiyay intee ka dhacday iyo nin hooyadiis ka guuray sadohdii kuma nagaado iyadana waxay kamid ahayd maamaayinkii laga dhaxlay sidoo kale waxaan rabnaa inaan isla dul istaagno adeer maxamuud ilaahay ha u raxmade sanadkii 2007 ayuu geeriyooday hadda waxa laga joogaa qiyaastii waa 18 sano wax 20 sano ku dhow wuxuu ka tagay 14 caruur ah sidoo kale caruurta la soo ri waxa waaye 17 waxa la dhashtay 14 caruur ah sidoo kale wuxuu kamid ahaa asaasayaashii degmada Matabaan oo ka xusi karna dadkii kamid ahaa Yuusuf Maleykaan Ismaan Camaley Maxamed Xuseen Dhagaweel Guulad Ibrahim Diraac Ilaahay oo raxmade Axmed Nuur Sheekh iyo Sheekh Sarmaal dadkii waxay ahaayeen buddhigii magaalada qaybta ka ahaa Gurceel sorry Gurceel ya sidoo kale wuxuu kamid ahaa asaasayaashii magaalada Gurceel oo udub dhaxad u ahaa waxa kamid ahaa dadkii la asaasay
يوسف ملايكان عثمان عملي محمد سبري يا محمد حسين دقوال إبراهيم قوليد دراع أحمد نور شيخ إي شيخ سرمالي sidoo kale inkastoo dadka qayb kamid ah inaan ka soo tagay macquul tahay oo wax kasta aysan dhameystirneen dadka isku waqtiga ahaayeen maxamed xalane siyaad dr aadan warsame faarax oo dr afay loo yaqaanay cali bale sahal macalin xuseen qaylshe ragaas ay isku waqti ahaayeen guulad lugay yusuf malaykaan ibraahim diraac oo sheekooyinka badan dhex mareen sheekooyinkaas ku laamaayo odayaasha ayaa naga shaafiyay